waxay ku dhacday jacaylkiisa waxayna ku dhaaratay inay guursan doonto. aabaheed ayaa u diiday waxa uuna go'aansaday inuu ninka si xun u galo si uu uga fogeeyo gabadhiisa. maxaa ku dhacay boqoradda Ingiriiska? maxayse tahay sirta mugdiga ku jirtay ee ka waramaysa qisadeeda dhabta ah? Elizabeth waxay ahayd gabadh markaa qaan gaartay markii ay indhaha ka qaaday wiilka quruxda badan ee la yiraahdo Philip. waxayna ku dhacday jacaylkiisa, balse waxa ay la kulantay caqabado. inkastoo laftigiisu jacaylka ay u hayso oo kale uu hayay, haddana qoyskeedu waxay u diidanayeen in xiriirkooda jacayli guulaysto. waayo Elizabeth waxaa loo diyaarinayay inay noqoto boqoradda Ingiriiska. waxaaba gabagaba maraysay diyaarinteeda. inkastoo Philip laftigiisu ahaa wiil boqor dhalay, hase ahaatee wuxuu ahaa mid soo qaxay oo kaba soo cararay dhulkiisii. qoyskiisuna waxay waayeen boqortooyadoodii iyo dhammaan hantidoodii oo idil. Elizabeth waxay ka madax adeegtay hadalladoodii iyo amaradoodii ay ku sheegayeen inay ninkan iska dayso, waxayna la lahayd xiriir aad u adag Amiir Philip. qoyskeedii ayaa ku dhaqaaqay markaas arrin iyadii ka yeeshay in ay murugo dhex dabaalato. markii uu bilowday dagaalkii labaad ee dunidu, waxaa Philip lagu daray ciidamada Ingiriiska ee dagaalamaya. welina aabaheed wuxuu geeyay goob aad u khatar badan, bal inuu halkaas ku geeriyoodo. qoysku waxay filayeen in ay ilaawi doonto jacaylkiisa, balse waxay awooday oo ay heshay qaab ay u wada xiriiri karaan inta uu dagaalka uu socdo. waxayna si qarsoodi ah ugu diri jirtay warqado, balse waxa uu u soo diray warqad iyadii ka yeeshay inay aad u naxdo, dhanka kalena ay aad ula yaabto. waxa uu ku soo qoray, haddii ay ii suurto gasho in aan dagaalka ka soo laabto aniga oo nool, waxaan loolan adag u lana gelayaa dhammaan dadka, kuba dar boqorka laftigiisa si aan adiga kuu guursado. markii dagaalkii ay ku guuleysteen boqortooyadii Ingiriisku, waxaa qoyskii boqortooyada kadisa ku noqotay in wali Philip nool yahay. isaguna markaas ayuu aaday boqorka kana codsaday inuu u guuriyo gabadhiisa boqoradda ah. boqorkaygiiyow, waxaan la dhibaatoonayaa jacaylka amiiradaada. jacaylkeedu waxa uu ka yeelay dagaalada aan galay kuwa iska fudud marka la eego jacaylka aan u hayo iyada. geesinimada Philip ayuu aad ugu helay boqorka Ingiriisku, waxa uuna bilaabay inuu u soo dabco dhankiisa. boqorku waxa uu ogeysiiyay inuu aqbalay guurkooda, balse ay ku xiran yihiin shuruudo go'an oo Philip hor yaalla. shuruudda koowaad waa in uu iska dhigaa magacyada iyo naynaasyada uu xambaarsan yahay ee uu ka dhaxlay boqortooyadiisii burburtay ee waddankaasi Greega, taas oo lahayd sumcad iyo taariikh xumo labadaba. Philip waxa uu doortay jacaylkiisa si uu u guursado Elizabeth. usbuucyo kadibna waxaa dhacay xafladii arooskooda, iyadoo weliba ay mucaaradsan yihiin qoyskii boqortooyadu. waxay ku noolaadeen nolol farxadeed 5 sano oo u horeysayna waxay isu dhaleen 2 caruur ah oo aad u qurux badan. labadoodu waxay safar u aadeen waddanka Kenya booqasho rasmi ah, iyaga oo bedelay aabaheed oo xanuunsanaa, mana uusan awoodin inuu boqorku galo safar diblomaasiyadeed. lamaanihii inta ay ku sugnaayeen booqashada ayaa waxaa dhacday musiibo aysan iyagu filan. markii ay hurdada ka toostay Elizabeth ayay ninkeeda wajigiisa ka aragtay murugo. waxa ay weydiisay waxa dhacay, waxa uuna ka codsaday inay isdejiso, waayo waxa uu u sheegay war naxdin leh inuu u hayo. waxa uu u sheegay in aabaheedii boqorka ahaa geeriyooday subaxnimadii. waxay la dhacday oohin maadaama aysan la joogin aabaheed markii uu geeriyoonayay. waxay soo afshartay booqashadeedii, waxayna si degdeg ah ugu dhooftay Ingiriiska si ay u sagootiso aabaheed. balse markii ay sidaasi u gaartay garoonka diyaaradaha ayaa waxa ay la kulantay boqolaal saxafiyiin ah oo hortaagan. waxay ogaatay markaasi in ay noqotay boqoradii boqortooyada Ingiriiska, ayna gashay booskii aabaheed. janaasadii aabaheed kadib usbuucyo waxa ay kortay carshiga boqortooyada iyada oo jirta 25 sano oo kaliya. balse inta aan loo saarin taajka boqortooyada, ninkeeda ayaa waxaa hor yaallay shuruudo aad u dardaran oo ku adkayd inuu fuliyo. waxaa loo sheegay in caruurtiisu ay qaadan doonaan magaca ama inayaha boqoradda ee aysan qaadan doonin magaciisa iyo inayihiisa. sidoo kale inuu ku khasbanaan doono inuu rukuuco horteeda inta taajka la saarayo oo dhan, weliba iyada oo ah xaaskiisa. Philip waxa uu diidanaa shuruudahaas, waayo waxa uu u arkayay in ay tahay duleyn, balse waxa uu ku khasbanaaday in aysan ka dhicin isaga iyo xaaskiisa wax mushkilada ah. waxa ay aragtay waxa uu falay odaygeedu ee rukuucid ah, ayna ka dhadhansatay inuu dareemayo iscaabsi iyo duleyn. waxayna ugu dhaaratay inay u abaal celin doonto. sanado kadibna markii ay xukunka qabatay ayaa waxa ay khilaaftay qaanuunkii u yaalay qoyska boqortooyada.
waxa ayna in ayihii caruurteeda ee iyada raacsanaa ay dib ugu celisay magaciisa, waxayna noqdeen caruurteedii ilmo Filib. naf isu huridaas darteed ayaa guurkoodu ahaa mid jiray 70 sannadood. waxa uu ahaa guur farax watay, waxaana lagu qiyaasaa guur boqortooyo kii ugu dheeraa ee soo mara taariikhda bashariyadda. ninkeedu waxa uu geeriyooday isagoo ay da'diisu marayso 99 sano. waxay dareentay markii ugu horreysay murugo aad u daran, waxayna ogaatay in markii ugu horreysay ay dareentay cidlo iyo kelinimo. wiilkeeda Tasharles ayaa yidhi, waa markii ugu horreysay ee aan daciifnimo ku arko hooyaday. waxaan waayi doonaa dhoolla caddayntiisii qurxoonayd, agjoogiisii waqtiyada adag. waxa uu ahaa nin gutay waajibaadkii guur. sanad kadib geeridiisa waxaa xumaatay caafimaadkeeda si la taaban karo. ugu dambaynna waxay ku geeriyootay qasriga boqortooyadeeda, cumrigeeda oo gaaray 97 sannadood. shacabkii Ingiriisku waxay aad uga naxeen geerida boqoradooda ay aadka u jeclaayeen, balse hadda ay shacabka Ingiriisku isku diyaarinayaan waqti cusub oo uu boqor u noqon doono wiilkeeda ahna boqorka cusub ee Tasharles. hooyadaydii qaaliga ahayday, boqoradda mansabka sare saaxiibka u ahayday, qoyska iyo shacabku waxay ka niyad jabsan yihiin waayitaanka aan ku weynay. waa waqtigii ugu murugada badnaa noloshayda.